السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي soo dhawaada maanta waxaan idin wada aktarkan taariikhdiisa idin wada aktarkan intaan gudaha u galin fadlan walaal subscribe saar channelka like-na saar waa mahadsantahay hadda inta sameysay saaxiib waxa ku leeyahay guuleyso hadda inta sameysay libax ama libax aktarkan wuxuu qabaa gabar Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed waxa la dhahaa Sabriin Dhowre isaga magaciisa waxa la dhahaa Idriis Akuna Alba baa la dhahaa arooskoodu wuxuu ka dhacay dalka Morocco maalin Jimco ah bishii Abriil 2019 jilaaga caanka ayaa guursaday gabar la dhaho jilaaga caanka ayaa guursaday gabar Soomaaliyeed oo la dhaho Sabriin Dhowre Idriis Akuna Alba oo dhashay oo ku dhashay dalka Britain wuxuu dhashay 6 September 1972 hadda waa 53 jir wuxuuna ku dhashay magaalada London jilaagan ayaa la aaminsan yahay in uu niyadda ka jabiyay malaayiin gabdho ah oo ku kala nool daafaha dunida kadib markii uu la aqal galay gabar Soomaaliyeed gabdha daafaha dunida ku kala nool dhubba macnaha dunida ka jabiyaa lagu leeyahay sawirada lamaanahan oo baraha bulshada qabsaday ayaa waxa ka falceliyay dumar badan oo sheegay inay tani ku tahay niyad jab maadaama ay jeclaayeen ninkan oo lagu tilmaamay inuu yahay nin aad u soo jeeto dumarka hadeerna uu noqday nin qoys leh waxa galeynaa marka saaxiibayaal taariikhda atooraha noloshiisii hore baa galeynaa aktarkan waa idin sheegay magaciisa Idriis Akuna Alba la dhahaa wuxuu dhashay 6 September 1972 wuxuuna ku dhashay degmada qaybta Hackney ee London ka tirsan aabihiisna wuxuu ka soo jeedaa dalka Sierra Leone hooyadiisna waxay ka soo jeedaa dalka Ghana korniinkiisa wuxuu ku koray deegaanada Hackney iyo East Ham wuxuu yaraantiisii jeclaa muusikada qofku wuxuu yaraantiisa jecel yahay mustaqbalkiisa waa noqda hadda adiga waxa jeceshahay soo qor mustaqbalka waa noqonaysa comment ku soo qor waxa jeceshahay laga yaabaa mustaqbalka inaad noqoto comment ku soo qor ninka muusikadu jeclaa ugu dambeey wuxuu noqday DJ isagoo jira 14 jir buu wuxuu noqday DJ kadibna isaga iyo saaxiibadiis waxay asaaseen shirkad yar oo DJ ah bay asaasteen ninkan ama aktarkan yaraantiisa wuxuu ahaa qof dadaal badan oo habeenkii xitaa shaqeeya si hadafkiisa uga miro dhaliyo habeenkii hadda ma saxan jir macnaa noloshan yarta inuu ka baxo rabay habeenkii hadda ma saxan jir nolol saruu lahaa marka wuxuu fursado ka helay oo channel ama ciyaaro television Ingiriis ah sida Crime Watch The Pile iyo kuwa kale wuxuu ka helay fursado kala guurkiisii ugu weynaa wuxuu yahay markii la siiyay door Stranger Bell ee taxana ah The Wire taxanaha markii la siiyay The Wire 2002 ilaa 2004 taasoo bedeshay noloshiisii taxanahaas noloshiisii waa ku bedelmatay taxanahan magaciisa waxa la The Wire ina soo daawataa rajeynaya waxa xigay doorka Luther kaas oo u suurta galiyay in uu ku guuleysto Golden Globe taxanaha Luther wuxuu ku guuleystay Golden Globe isla markaasna loo soo magacaabo Emmy filimada waaweyn uu jilay waxa kamid ah Thor baa kamid ah Pacific Rim baa kamid ah Mandela Long Way to Freedom baa kamid ah Beasts of No Nation baa kamid ah Star Trek Beyond baa kamid ah The Suicide Squad baa kamid ah iyo kuwa kale badan uu film aktarkan jilay aktarkan hantidiisu intee gaaraysaa baa isleedin hantidiisa intee lagu qiyaasaa ilaa intee gaaraysaa aktarkan hantidiisa guud sida lagu qiyaasay waxay gaaraysaa 50 milyan xog ogaal la sameeyay sanadkii 2022 hantidiisa waxa lagu ogaaday inay tahay 30 milyan hadda oo ay marayso sanadka 2025 hantidiisa waxay gaaraysaa 50 milyan qorshihiisa dhaqaale wuxuu ku saleysan yahay ila kala duwan ninkan qorshayaal badan meelo badan buu ganacsi ka sameeyaa meelo badan buu wax ka soo galaan hal meel wax kama soo galaan waxa kamid ah jilitaanka kamid ah wax soo saarka kamid ah muusikada ama DJ-ga kamid ah dejinta kamid ah oo voice acting-kii ah ganacsiyada kamid ah sida spiritiski waa kamid ah iyo mashruuciyada smart city ah waa kamid ah door kasta wuxuu gacan ka geystaa kobaca hantidiisa macna door kasta uu sameeyo hantidiisa kor u kacda marka aktarkan taariikhdiisa intaas ku soo koobayna
fadlan walaal qaali channelka hadaa ku cusub tahay like noo saar, like waa noo muhiim, subscribe na saar. inta hadaa saartay saaxiibay waxa ku leenahay saaxiibayaal guuleysta waa mahadsantihiin. intaas ku soo gabagabeynaya.